waan hubaa inaad wejigan garanayso amaba si aad meelun ku aragtay. waniyo talo sawirka xagaan ku arkay sawirka meel baan ku arkay wariyaa waa kii KFC waa kii loogadii shirkadda KFC weeyaane. KFC waxaa loo soo gaabiyey Kentucky Fried Chicken. makhaayaddan waa mid ka mid ah makhaayadaha ugu faca weyn uguna caansan ee ku yaala gudaha waddanka Mareykanka. makhaayaddan waxay iibisaa hilibka digaaga ee shiilan iyo cuntooyinka fudud labadaba. Okay, hadda sawirkan talo waayo. sawirkan waa loogada ama sumadda makhaayaddan. laakiin talo odaygan yar yuu ahaa. odaygan yar waxaa la oran jiray Colonel Sanders, wuxuuna ahaa aasaasaha KFC. wuxuu kaloo odaygani caan ku ahaa inuu waayihiisa soo maray duruufo runtii aad iyo aad u adag. waxa weeyaan maanta waxaynu muuqaalkan ku eegi doonaa mid ka mid ah duruufihii adkaa ee uu soo maray iyo siduu uga dabaashay. innaga laftar ahaanteennuna waxaynu ka faa'iidi karno insha Allah. Magaciisa oo dhammaystirani waa Colonel Harlan David Sanders. wuxuu ku dhashay magaalada Henryville, Indiana ee cariga Mareykanka hilaadii 1890kii. sanadu markay ahayd 1895kii isagoo 5 jir ah waxaa dunidan macasalaameeyay aabihii Wilbur David Sanders. gelida aabihii kadib mas-uuliyaddii aabanimo iyo tii hooyanimo waxay dhakada ka fuushay hooyadii Anna Sanders oo bilowday inay ka shaqayso meel lagu iibin jiray xabuubta si ay caruurteeda cuntada miiska ugu saarto. Colonel guriga ayay hooyadii kaga tegi jirtay si uu walaaladii u sii ilaaliyo cuntadana ugu sii kariyo. durbaba noloshu waxay ku bilowday inay tuquntuqiso si ay ugu diyaariso booska uu mustaqbalka qaban doono. kolkii uu jirsaday 10 sano wuxuu bilaabay inuu ka shaqeeyo beer ay lahaayeen reer deriska ahi siduu u caawiyo hooyadii. isagoo isku wada shaqada iyo inuu waxbarashada dheeg ka wado, haddana suurtagal ayay noqon weyday. waxaanuu go'aan ku gaadhay inuu dugsiga iskaga tago. markii uu marayay fasalka 6aad wuxuu bilaabay inuu noqdo rinjiile dadka alaabta u rinjiyeeya. markuu 16 jirsaday wuxuu ku biiray ciidanka qaranka ee dowladda Mareykanka. da'diisa oo aad u yarayd waaga waxaa lagu adkeeyay inuu soo qaato 1 sano oo tababar ah. wuxuuna go'aansaday inuu iskaga tago shaqadan maadaama sanadka aanay jirin cid qoyskiisa dhaqaale ahaan caawin doonta. tirsiga sanadadu markay marayeen 1907 wuxuu ku biiray dadka wadooyinka qashinka ka xaadha. nasiib wanaagse waxa uu dhawaatay jaamacadda la dhaho LaSalle Extension University, halkaasoo uu ka dhigtay culumta sharciga ilaa markii dambe uu noqday garyaqaan ka shaqeeya magaalada Chicago ee waddanka Mareykanka. muddo kadib waxay islaayeen mid ka mid ah garyaqaanadii uu la shaqaynayay. kadib shaqadii ayaa laga eriyay waxaana laga saaray magaalada Chicago oo waxaa lagu celiyay Indiana oo ah bartii uu yaraantiisii ka soo bilaabay la dagaalanka waayaha nololeed. kolkii uu ku laabtay magaaladii uu aabihii ku waayay, wuxuu iibsaday doon yar oo uu ku shaqaysto. muddo markuu ku shaqaysanayay doontii wuxuu damcay inuu iska iibiyo oo uu aasaaso shirkad soo saarta guluubada leydhka. laakiin nasiib darro waxaa loo sheegay inay jirto shirkad kale oo iibisa guluubada weliba si ka wanaagsan sida uu isagu rajaynayo. waxaan oo guul darro ah oo uu marayo, haddana aasaasaha KFC weligii isma dhiibin. wuxuu u wareegay shirkad iibisa taayirada ama shaagaga gawaadhida, halkaas oo uu ka shaqo galay. muddo yar kadib shirkaddii ayaa kacday oo albaabada la isugu laabay. isaguna boorsadiisii yareed ayuu dhagta qabsaday oo uu iskaga tegay. 1930kii isagoo da'diisu tahay 40 jir ayaa nin saaxiibkii ahi u yeedhay oo uu ka shaqo gashay kaalin shidaal oo uu lahaa. laakiin markuu 2 casho ka shaqaynayay ayay iyaduna isxidhay sababo la xiriira dhaqaalaha oo hoos u dhacay dhammaan dunida. waana sanadadii la oran jiray The Great Depression. 9 sano ka bacdi waxa uu yeedhay kaalin kale oo uu ka shaqo galay. muddo bil ah markuu hayay kaalintii, waxaa ku soo dhacday fikrad ah inuu kaalinta dhinaceeda ka furo meel yar oo hilibka digaaga shiilan lagu iibiyo si dadka shiidaalka gawaadhida ku shubanaya ay uga iibsadaan. waqti yar kadib makhaayadii uu kaalinta ka dhinac furtay waxay noqotay mid dad badani xiiseeyaan. wuxuuna go'aansaday inuu meel gaara u furo. wuxuu u sameeyey xayeysiin iyo suuqgeyn aad u fara badan. kadib makhaayadii aad bay ugu kobocday. 4 sano ka bacdi wuxuu iibsaday guri ku dheganaa makhaayadii si ay dadku u fadhiistaan oo wax ugu cunaan. 1 sano kadib waxaa dhacay dagaalkii labaad ee dunida, waxaana qasab noqotay inuu albaabada isugu laabo. kolkuu dagaalkii dhammaaday wuxuu damcay inuu makhaayadaha kale ka iibiyo digaaga uu soo shiilay, laakiin 1000 jeer in ka badan ayaa la diiday iyadoo lagu leeyahay saliidda ayaa ku badan, si wacan umaad soo shiilin, iyo iskabayntii meheradaha waaweyn lagu yaqaanay. 1952kii waxaa aqbashay makhaayad yar oo ay wax ka iibsan jireen dad aan gaadhayn 20 qof. dadkii makhaayaddan wax ka iibsan jiray ayaa la yaabay sida wanaagsan ee loo diyaariyay digaagan la shiilay. muddo yar gudaheedii waxaa u yeedhay makhaayadihii hore u diiday
iyagoo kula heshiiyey in xabad kasta ay ka siin doonaan 4 senti. Wuxuu iibiyey makhaayadii iyo gurigii yaraa, wuxuuna go'aansaday inuu aado magaalada Kentucky. Maalintii gelinka hore wuxuu diyaarin jiray cuntooyinka fudud oo wuxuu ka iibin jiray dadka wadada maraya. Gelinka dambena wuxuu booqan jiray makhaayadaha ku yaala magaalada Kentucky isagoo u soo bandhigi jiray fikradiisa ganacsi. Sanadii 1960kii ayuu nolosha dacal ka soo yara qabsaday. Kumanaan diidmo iyo dhacdooyin oo darafka noloshiisa dib u dhigay. Colonel Sanders wuxuu ku guuleystay inuu furo KFC sanadii 1962, waxaanu qaybo kale ka furtay wadamada England, Mexico, Canada iyo Jamaica. Iminkana la hadlayna waxaa jira 30,000 oo KFC oo ku kala yaala dhammaan dunida. haddaba maxaynu ka faa'iideynaa sheekadan ama qisadan? Waxaynu ka faa'iideynaa in diidmooyinku ay ibafur u yihiin waayo aragnimo fara badan iyo guulo la taaban karo. haddaad muuqaalkan intaan soo gaadhay aad baad mahadsan tahay. waxaan rajaynayaa inaad nagu soo biirto. Assalaamu calaykum.